توبي waxay hadda qarka u saayay isku weeraraan gobolladii Kismaayo iyo ilaa Gado in isku weeraraan Soomaalida dagaalka shaqo kuma mid walba waxay doonaysaa inay qabsato dhulkaas waaya imaaraadka sharka la raadaayo iyo maarta nimanka maartaanay islaamka la dagaalamay imaaraadka la raado iyo kuwa daba socday waxay yiraahdeen Soomaalidu هاجش الدجال كي يمانيدو سقطران هالشيء تجهيزات سقطران لراهو سوالو هالشيء ما إن الدجيزتان أدي الله سعتان بافي عن خاصان ركضت اللي يرتو يقولوا بهلان تستا كاشامد أدمودس ستا وحنا لا يعني كيف إذا سننا كيف إذا سوي مهين ورك الدون وده كان حاجة دعية محام مرض الجوة كيف إذا سوي واحد يشتينا لو الله بقول كنت في سياستان ما خلوا تدعون إنسان سياسة كبرت ووده كده واحد سياسة كبرت هنا حاجة إنساس وايه واحد بلاين داخل يملك سوق قلب Soomaaliya dadtiin maxaana dagaalka iimayl naga galay wadan jaar nala ah oo badan waxay soo walaalahay oo la baabiyay ayaa leeyahay idinku soo galo qayb ka sheegta waa fidda kale loo galiyo taasina waa waxa gaas Soomaaliland bay noqotay kuwada inaan itaan loo haynin aynaan maartay kuna fikiraynin ayaa hadda isku keen duhaysta laba dawladood wada Shiina ah oo midna Taiwan la yiraahdo midna Shiinihii weynaa qunbulduuriyaha haysta yahay ayaa hadda Soomaaliland isku leenay hadda shay waxa la ii sheegay sirdihiin iyo raas cadin iyo sir agteeda inay maraakiibtii maartaanay Shiinu iyo maartay kuwii diyaaradu ka kiciyeen ay ku soo dhawaadeen Chinese kula Taiwan waa jasiirad yar oo ka fallaagowday maartaanay Shiina oo doonaysa adduunyada kale inay wadamo iyaguna fallaaga ay raadsanaysayo Soomaaliland bay heshay kolkii waxa la yiraahdo safir bas weydaarsanayna laba safir ma la socodinta wadankiina waar ma la socotiin laba safir badur bal isweydaarsaday saldhigna waa la siinayaa baa la yiraahdo Chinese-kana maraakiibtiisa Djibouti joogtay iyo Durbaseel Abdul joogtay waxana kuma aha inuu barbara iyo inta wada duqeeyo digidnina badan oo bixiyay inaad la socotaan mooyaan ma la socotaan ma lama socotiin waa dagalaad iyo qaad ka garanaysiin iyo maartay game bad garanaysa carruurtan game bay garanayaan iyo dhalinyarto laakiin wadankiina wax ka soo ma garanaysiin halka barbara marka imkaas Taiwan la soo dajiyo ciidama ay dajisato Chinese kuma deynay uu la dagaalamaya awalna maartay imaaraadka ayaa la dhisay ka dhigo xuutiinta ay barbara iyo hargeysa waan duqeynayna barbariya hargeysa waan ma dhageysanayaan barbariya hargeysa waan duqeynayna xuutiinta soo kiriya soo duqeeyaan iyo Sacuudiga inoo qaylaan dad mijisada fadhina iyo dhuusanuga si fiican qaylaan ayaa la wada duqeyn dagaalna shaqana kulahayn waxa se tagu daray maanta ay dhacday shalay iyo doraad oo shalay iyo doraad ay bilaabantay wufuud Masar ka timiday oo Soomaaliland timiday oo dirta ciidamada daba socdaan ya oo la leeyahay bixireenka Ethiopia meesha kaliya laga duqeyn karay waa Soomaaliland iyo Soomaalida koonfurta way diiday xitaa Masar waxay ku dhawaayeen xiriirkii koonfurta loo qooyo way Soomaaliland goosato Soomaaliland baa ictiraafiyo wadan weyn oo Masar la raadanayo ictiraafayo wallahi waxa dii sheegaya maxaa sheegaya madaxweynaha Soomaaliland oo sheegaya kuwa baarlamaanka sheegaya ilaahay oo ictiraafi disiya ma ahayn inada kullu helayni war ma been ma sheegaya ilaahay oo ictiraafi nasiya ma ahayn wallahi ma gaal nasiin kareyna oo mujrimiinta carabtuna nasiin kareyna waa kuma nasiinaya ilaahay baa nasiin ka maanta 30 sanadood baad ma ku nooleeyeen nabad 30 ka soo nabad ayay nasiiyay ilaahay baa nasiiyay shacabkeena fiicanna nabad isku waafaqay kiliifkii u dambeeyay qabtay doraad ayaan nidhi Soomaaliland maxay u duceeyay markii la yiri ayaan waan ducaynaa dhageysta wax kale oo digu duceeyay ma hayee nabadda 30 ka sano ku nooleeyeen khayr Allah nasiin taasa ku fiican ma ku ducaynaya nabad Allah inoogu wado waayo wax kale oo qabteen dawladda Hargeysa joogtay man garanayaan
baarlamaan 5 sano la doortay oo shanadkii shan iyo tobnaad maraya iyo 6 iyo tobnaad ma waxaas loo kala doortay oo jagaa u iibiye mooyaan maarta aqal u iibiye mooyaan wax kale aan qabanayn musiibay haysan dadkii aan doornayeen maarta waa ma baarlamaan lagu sheegay ama xukuumad lagu sheegay ama maarta wuxuu doonaadee dhabarkii bay dhabarkii waan garbabeelay waddankeenu garbalaayay maanta si loo qayilayay uu la hawla wala quwwata illa billah war maanta dagaalka Masar ay halkaas saylac laba xalaha telefishinka ka dhageystay barbare iyo saylac labadaba inay fadhiisanayso basaaridu xalaydan aan dhageysanay saakadan aan ka dhageysanay TV-yada xamar qaar kamid ah saylac iyo barbara kolka Itoobiya laga duqeeyo Itoobiya maxay ku sameeyeen 100 milyan baad ku soo rogmay meel ay Soomaaliya la martay والله لا دون وانا روح هذه شيء دليري انا وانا سوان كبوبي هاكيسي حبين والبنا غورما لو قادي بان اميدكا وحبال لا كين لكن واحد ii sheegaya dadka dhalinyarta ee boqolka sano ee dambe rajada qabow baraaruga hadaydan baraarugaynin danna kala hayn wadankiina siyaasadna dan kala hayn ده ودك مركا أفرط قفها كيسي جوك تقول بدي أنت الدباها كي بيانه إيه بنا يصير قيلهم لكن كوي قيلات كسو يسين لفت ودا كتالي دي صوب ديرتون وايو كل كسيل على قد قايو إيه بربنا على قد قايو إيه دياردو كعان دي توب كنتالا يستايلنا يدوار دياردو باوي حتى الدولة فرنسيسكو يبصود تبع يدو تركيا سوماليا دقيق كحماينا يسا أيوة فرنسيس كان يتوب بيسود وحلا وفد دوم صانيسنا واردقلا إن شغله كلها يبقى ودك يعني كسرعة ومضوا وحوي اللي يفتو إنه كعضه ويترى ودك يهد نوجد دايو إنه كل بقول لك يبيه ودك أما كوح على مسافة مض بايسكالي عباد مالي دنيا سوي هكذا كل بحال الدنيا يبيه ما تبيعي الدول المسمى سيل حي بسنتو إن في جسرها ساعدين عبادي ولا يبيه ضد بايسكالي بدول لا يبيه درك لمن قارا اسكال جسده هذا ولا سيو لا يبيه dadkii bi xaqay maray beer hore cunana xaareen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim arwah allah madaxna geesa joogta i'tiraaf ilaahi weydiisto ilaahi ka cabsada oo salaadan maartay aan macna lahayn aan tukanayno macna aanu yeelno ilaahi run u sheegno been baan tukanayna aan mustaan ilaahi وحلا وعمل كين أردني وحب برنيا صلاة تكون برنيا بيان على النهاية خايمين بان النهاية توب بان النهاية وحكستان نقولنا ووضني ما برا وضني ماشي وضني ما رضي يسلا نضو سمد أنت أصلا تحسسني يا مانته لكن وحويان بلدنيات الله هذا يعني فكرة ودك هنا كفكرة بالله